annagoo iska joognaa awal bahalkan ku dhibaataysnayn oo dhib badan uu noo geysto dhaqaalahayagii uu la degay baa niman jooga maaragtay miira maaragtay mawa ay shalay shir qabteen waxay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa qarannimadeeda ku bedelan mayno waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragtay anagu u baahannahay inaan iska joojino marka sidaa adligeed qaadka waa iska joojinaynaa waxaanan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayada iyo magarata lagu bedelayo saas adligeed kan waqtigiisi baa dhacay taymkiisi baa dhacay meeshiisa ha u dhaafeen ayaga og meeshay geynayaan ayagu hadday ciidooda danaynayaan anagu ciidayada iyo badayada iyo carrigayga aan danaynayn wixii intaa ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dawladayada aan uga dambaynayn marka sidaa adligeed waxaan idiin sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka mirowga waa joojinay adugu waa joojinay maadaama ayagu ay joojiyeen annagu aan joojin maaragta wixii siyaasadana dee qaranka Soomaaliya qaabilsan waxa weeye suuqiisii iyo ganacsigiisii mid asaga ka fiican oo ma garata waliba qudaara oo haddana qudaar lagu bedelayaa kii dollar baa lagu bedelayay oo maalin walba intaas $400,000 baa baxaroonayse mid hadda lagu bedelayo ma garata bahalkii la oran jiray kalluunka iyaga iyo khayraadka iyaga iyo ma garata qudaaraha iyaga lagu bedelayo baan ku bedelaynaa oo hadda noo yaalo aad u jeedaan oo hadda dhabarkayga daadsan waxa weeye waliba ka dhowna waxa laga keenay maaragta dalalka dariska intii baahidayada noqoto hadba intii baahidayada noqotaan wacanaynaa awal midkaan mid ay nagu dhibaataynayeen naga soo dabararayeen oo dhib badan noogu geysanayeen asagoo qallalan noo keenayeen asagoo qaali ay naga gadayeen ayay noo keenayeen hadda laakiin mid anagu intaan rabnaan dirsanayno wixiina qanciyana aan ka qaadanayno baan qaadanayna awal qoryo qallalan bay noo keenayeen diyaaradaha noogu keenayeen saas adligeed waxa weeye qaadkoodii waa laga gudbay waxa weeye waqtigiisii baa dhacay waxa weeye Soomaaliyana Soomaali baa leh bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Cabdimanaan Cabdullaahi Soofe guddiga ganacsatada qaadka Soomaaliyeed ee Mira Company annaga waxa waaye qaadkanka ganacsigiisa awal waxaan loo geeyay burburkii iyo dawlad la'aantii iyo dhibaatooyinkii la soo maray ayaa waxa laga raadinayay nolol maalmeedka in laga helo sidaas awgeed maantay oo aanu helnay dawladda aanu leenahay markaan waxa tiigsanaysaan inaad horumar gaartaan ayaa hadda Kenya xusuusisay inay waxa ay nagu haysay dhibka ahaa in ayaga ka soo qaadinay ganacsiga annaga waxa waaye maawatu Muqdisho waxaan hantideena ku beelnaa oo soo gadnaa waa cagaarkaas haddana waxaan celinno oo aan xag u celinaa ma jirto waxa weeye waxa kana cagaar waxaan dhiibnaa lacag sidaas awgeed maadaama hadda maanta ayna xusuusiyeen ayaga wixii hadda ka dambeeya annagu hantideena waxaan gashanaynaa beeraheena iyo mashaariicdeena maadaama dawlad la'aanta aan ka baxnay maanta aan dawlad helnay annagoo wadankeena u heelinayna oo aabadeena u heelinayna kalluunkeena iyo beeraheena iyo mashaariicdeena ayaan gashanaynaa hantideeni qaadkii iyo cagaarkii aan ka soo qaadi jirnay oo aan waxan faa'iido oo noogu jira aysan jirin in ilmaheena iyo dadkeena ay ku wareeraan maahana maanta wixii ka bilowda waanu joojinaynaa wixii arrin siyaasadeedna waxaan uga dambaynaynaa dawladdeena annagu waxaan go'aansanay maadaama aanan keenaynay cagaarkaas aanan ku bedelaynay hantideenna maanta wixii ka dambeeya inaan daysanno lacagteenni oo aan lacagteenna waddankeena gashanno oo aan waddankeena dib u dhis ugu suubsanno oo aan hantideenna waddankeena ku beelno xoolaheenni aanan ku soo bedelanaynin cagaarkana inaan dadkeennina noo nastaan oo dhalinyaradeenna ay wax bartaan oo ay ka nastaan waqtiga ay luminayeen oo qaadka intay u fariistaan cagaarkan ay cunayeen wixii maanta ka dambeeya waxaan garaadsanay hantideena inaan waddankeena gashanno baalkaas qaadka cagaarkan inaan iska joojino